dhabankaaga laga dhaashanaya dhabanka ani madaxa la wadaa miya dhabankaaga laga dhaashanaya dhabankaaga laga dhaashanaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مارتي خير سود وهذا ولكن مارتي برهان أكون على مارتي كنا بعض ما أنتو حر وحير مارتي نا وكلف هذه السنة محير وأنا كلف هذه السنة يعني مارتي وحيلا مارتي وجهي وحوبة هي جيرك وحوبة هي بنادك مارتي وحيلا ست إن شاء الله مارتي وهلنا يو بنادك عطو علها يو حيليس إن شاء الله وحنا نجوكتو ناجيو عرالي إبروس soo marka insha Allah soo dhawaada marka hore maartay waxaan rabaa maartay inaan ku soo dhaweeno walaalkeen maartay Ibros oo noo soo xidhan productkan waxa la qaar kamid ah oo qofka maartay kaliya doono bini'aadamka أنا ما قال أوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد ما نقول السلام مر صدحت مرة فرد بعد ملك السادين اللي جوكتها وحنا نسود وإن شاء الله كنا حرجينا إن قناعين تونا حرب بدنا قصة بس productkan ما تاني فايدة كيف فايدة ده بدنا إن بدنا باركتين إن يعني كوس أرتين برودكتي هربلا في فايدة دي لكن ما توحى صدح لي برودكتي وين شرحين حتى هو صدح لي من هاي ودنت عمش أوكي قيبتها إن شاء الله كريم برها وحي نشر عندنا قيبة سبورتسكا أنا وحي نشر عندنا قيبة عنتضع النتريشن كأنه فقط الشركة بروبو لو بهن شكل أنا فقي واو محصل هذا فرح لها بلها يا كلها أنا كنا يجي إن شاء الله maanta waxaan ka hadlaynaa productiga Herbalife iyo faa'iidada uu leeyahay waxaan ila daadinayaa wiilashan oo maartay ku takhasusay oo muddo badan ku dhex jiray oo jirkooda wax badan iskaga gartay marka insha Allah wax walba aan jecelnahay oo idinkana waan idinka faa'iideynayaa saa uga faa'iideysataan marka wiilashan badiyaa waxa idin sharxay insha Allah marka anigana waxa idin sharxayaa kreemadii iyo waxyaalihii jirka iyo skin care-kii marka gabdhaha soo dhawaada markale sideeda ba qaybta sportska ama qaybta cuntada ama qaybta skinka wiilasha gabdhaha hablaha saddexdu way isticmaali karaan laakiin haddana waa lagu sii kala badan yahay masha Allah inkastoo habluhu jecel yihiin habluhu quruxda iyo qaayaha jecel habluhu way isticmaali karaan si fiican habluhu way cabi karaan maaragtay sheegii cuntadii ha skin care-kii sidoo kale labada wiil iyo gabar uma kala socno micnaha laakiin anaga skin care-ka gabdha ahaan waxaan jecelnahay skin care-kii waxyaalaha isku qurxinta waxaan jecelnahay wax yar in lagu dardaro insha Allah productga maanta ka hadlay waxa ugu horeeya cuntada qofka bini'aadamka sideedaba inuu jirka soo noolay midba dadkeena sideeda waxaan ku yara badan in maanta lifestyle-keena quruxda jirkeena qaab dhismeedkeena bedelo cid kasta oo baahan tahay maxaa soo raacay insha Allah cream cuntada waa wax muhiim weyn dadkeen dad badan ma sha Allah aniga iyo maxaa coach Burhan dad badan maanta miisaankooda qaar maanta miisaankii maxaa jeceshahay hadaa u baahan tahay inaad cayshid hadaa u baahan tahay inaad saacadaysid labadaba waad u isticmaali kartaa iyo hadaa doontid inaad dhexdhexaad noqotid micnaha ma sha Allah taasina waxa weeyaan oo sideedaba cuntada ma jeclahay din sharaxaad inaan iftiira daayo oo ku saabsan yes tan ma jeclahay inay disha kay faa'iidada leedahay qof kasta wuu jecel yahay maanta inuu qaab dhismeedka jirkiisa hagaajiyo quruxda hagaajiyo yani markuu muraayada soo taagan lebiska qurux badan inuu helo haddaad si kasto jirkaaga ama overweight yahay ama miisaankiisa oo lacabay cabitaan caadi ahaan absolutely waa kan shaygan sameynay marka waxaan jecelahay maanta kan wuxuu ku wanaagsan yahay markuu qofka miisaankiisa dhimayo kale nafaqeynta jirkiisa kale isu dheelitirka waxyaalaha jirka u baahan yahay kale nutritionska waxaas oo dhan baa ku baahan yahay haddii vitamin tahay haddii calcium haddii protein tahay wax walba taasaa keenaysa qofka bini'aadamka inuu kaga maarmo cuntooyin fara badan oo baalka carbohydrates ku badan yahay qaar baa calories ku badan yahay qaar baa fat ku badan yahay waxaas oo dhan baa albaabada u xidhaysan ina cuntada kale ma ka maarmi karaa micnaha laba waqti yes suucay maartay marka challenge-gu wuxuu yahay 2020 samarka qof waliba inta winterka lagu jiro waa meelaha Herbalife laga helo weeyaan in dhulka qabooba baan ka hadlaynaa qof waliba maanta jacket isweyn buu iska xilay laakiin 2020ga in qof waliba soo 20 kilo 30 kilo 40 kilo adigoo ma sha Allah habad ma sha Allah noqonaysa qabowga iska celin kartid oo aad u baahnay jacket jirka uu galaya marka cuntadaadii quraacdaadii shaygaagii ma sha Allah in koo kale aniga alxamdulillah bas aan ka qabto ma sha Allah bismillah adiga wiilashan sidee u dhisayeen ayaa ka dareemi kartaa iyo nuurka ka baxaya maadaama skin-kaaga quruxdaada waxay u yihiin waa productiga waxay iska garteen waxay dhahaan dhabankaaga laga dhaashanaya dhabanka ani madaxa la wadaa miya
dhabankaaga laga dhaashanaya dhabankaaga laga dhaashanaya yani subag dhabankaaga laga dhaashanaya wajigii ma la wadaa sinka ku qurux wajiga badnaanaya ma larka leeyahay reexa markana waxaa Ayna wada dhahdaa wejigaaga laga subkanaya laga subkanaya oo labadii baa lagu sheegay oo marka Herbalife product isticmaasho waa mar walba nafaqada jirka u baahan isku soo wada duub markuu qofku daal badan maxaa dhacay qofkii cuntadiisa cunta daal fara badan markuu xanuunka dhabar xanuunka caajiska wuxuu dhan way because muscleskiisa baa daciifay laakiin weliba haa caajis oo kale aniga dareemaa soo hadda bardadkii aan rabaa laftigeyga inaan wiilashoo kale la bilaabo insha allah laakiin qaybta skinkaaga isticmaashaa haa qaybtaan aad u isticmaalaha taasaan soo daynayna insha allah kir magacay waa Ibros haddana waxaan ku wareejinayaa kinkaaba najma mise bardadkiisii sharaxa aniga غير واسيد مارت ولكن نو شيغاي مارتي جيرك انت سو مارت فايد بدن u baahan yahay jirka maalin suuxina calosh maad nadiifiso kale dacto kale oo walaalkii ka tagay insha Allah ya raacisha in yar wuxuu baad idin maartay jirka wuxuu ku sameeysaa caloosha ku nadiifisaa waa waxyaalo oo ka fiican yahay soo marka waxaas in ay wajiraan si qaabka isticmaal leeyahay product kale maartay hadaad maartay waan ku bari doonaa insha Allah if you have maartay diyaarta insha Allah aniga marka insha Allah waxa yar in kitaabto kale maartay for example qofka markuu training aado kale gym-ka maartay gym for example qofku u baahan yahay maartay inuu helo balkan ka siyaasad waxa ku sabar maartay kristanada u jeedaan qofka markuu training aadayo rag qaar laga yaabaa gym inay maartay ku daalaan oo kale maartay ama hadii hal saac traininayaan ama laba saac traininayaan inuu qofka maartay oo daalo ama qofka xataa caadi ahaan ama adu training u aado ama isu aado wiil ama gabadh labadaba soo marka wuxuu u baahan yahay qofkaasi tii wax inuu helo more energy uu helo oo maartay ka maarmi lahaa sidii uu iska u wada lahaa haduu shaqo ku jiro kala xataa uu isticmaal kara no problem ayuu maartay ka caawinaya intaad maartay training aadin before aad tagaysaa maxay yeelay وانا هيلث نتور وحالا waxa kamid harbi laf aan ku arko waxa kamid sportiga adaba wax balkan ay timaad infirmort sportiga ay halka ku qoran tahay hadaad maanta google ku qortid oo kale waxay guushin u saartaa all product ma waxay guushin u saartaa productyada qaal maartay oo waliba health nuturi markuu yahay ay u saartaa waa qaas way dadkana uma saarto hadaad halkan ku aragtid product halkaas u saaran oo kale waa sax waa health nuturi waliba waad ma guushin tin way waxaan ku saar marka training soo dhimayso kale oo asoo energy gaada wixii ka soo baxan oo asoo isticmaasho jirka marka wuxuu baahay protein u baahan yahay ama iscaate ama iscayil labadaba jirka protein u baahan yahay soo qaasa marka dadka personal trainer waxay ku leeyihiin qofka markuu training aadayo kale haduu xataa wax kasta cuno jirkiisa laga yaabo inuu ma sii weynaa because wuxuu ku leeyihiin caloosha caloosha bin aadanka وإن ير لكن بروتين وحكو سينايا أو وليب بروتين وكليهن منه وكيميكال كوجر منه واسك نتوري وحالا بروتين أو نتوري أو حكو سينايا جيرك هذا إن ما أتكهشيد ما أرتي واحد أباند فيتامين كي أباند إنه جيرك هذا ما أما كود اسمه أما كود وينادو أما أرتي أما صد أو ميزانك تكون سميله ما كان أنا تريننج كصبح وكله كان استعمالها وسترينج واير هل كان وحكو خارج أنت ما أرتي كوجرا ما أرتي بروتين كوجرا فيتامين كوجرا دور waxa ku jira vitamin D ku jira vitamin C ku jira maartay B6 B12 ku jira proteinkiisana maartay wuxuu yahay waa magaciisa Allah waa content eco protein gram waa protein aad u fiican yahay waliba waxa kala ku dheer waa taad ii sheeg halka city halka daartiin calaamada city yar calaamada city waa aad calaamada city shirkadaaniti dadka ma siiso waxay siisaa cuntooyinka oo waliba qaasan sportiga marka la fiiriyo oo proteinada haduu guushinta u saaran yahay oo okay u yahay dadkaas u saartaa oo waxa la health nuturi waliba hadaad ku aragtid wax saan oo kala ah oo proteinada qaar kamid ah waa okay waa aad u fiican oo isticmaal kartaa anigu ma dhahay fitness magazine qiimeeya productyada bilaadku waxa la yiraahdaa quality and safety quality and safety qof kasta bilaadana dadka qaar waxa la yiraahdaa saxda waxa kamid ah kala qof baa jira gym buu tagayaa maamul jims laakiin anigu inaan product inaan u saxno nidaamkiisa cuntadiisa kale u saxno product gym qaybta sports u saxno cunto yani wixii oo dhan baan u saxnay insha Allah kareemka inuu tulma soo koobi karo najma gabdhahayga waxaa idin leeyahay muddo waxaan isticmaalayay skincarekan 3 bilood ah marka skincareki oo dhammaystiran weeyaan gabdhaheena wuxuu u fiican yahay gabdhaha finan kale gabdhaha wajiga maaragtay dark skinka ku dhinteen waxyaalahaas oo dhan xataa uu nadiifiyaa uu qaada productyan yani productyo badan aan tijaabiyay laakiin kii igula fiicnaa kan buu ahaa micnaha kii madaxa xataa skincareki madaxa iyo wixii dhan buu leeyahay kasoo qaadha shaambadiisii doobi shaambadiisii kan waa conditionkii intaas oo dhan uu leeyahay kaama dhamaanayo hal xabadaa gadid kaama dhamaanayo shaambadiisii sidoo kale
يعني wuxuu ku heenayaa intaan hadda waxa ku dhaqan kartaa 4 jeer adi waa bil buu ku heenayaa ilaa anaga weekii 2 jeer bisaan dhaqanaa hal maalin moogta weekii kan waxa weeyaan kareemkii waxa jirka aan masal lahayd kana sidoo kale waa gel jirka asagana ku dhaqanaysaa waa ku nadiifinaysaa yani waa u isticmaal hortii aan koobkan sheego Herbalife waxa uu yahay kareemadiisa wajiga iyo yani jirka labadaba waa isticmaal kartaa waxa kuma dhibaayo gelkan korku uu nadiifiyaa sidoo kale wajiga ku qabiisan kartaa aad buu fiican yahay wuxuu ku siinayaa wajiga ayuu waraabiyaa and then kareemadii caadiga ahaa uu asagana leeyahay aad uga helaysaan kareema inta suuqa tagtaan baaraadisaan kareema nagu soo baxay gabdhahan waliba gaar ahaan Soomaalideena midabkeena madowga way dib maaragtay intaan helno dukaamada cadaanka oo kale wax nagu soo baxa laakiin Herbalife waxaan ka dareemay in qof walba loogu talagalay ama cadaan ama madow uu leeyahay marka waa alaabtaan nala daldalaalaaba marsada muddadaas aan isticmaalahay marka kani waa midkaan wuxuu leeyahay syrup buu leeyahay dark cream ayuu leeyahay wuxuu leeyahay night cream buu leeyahay waa intii oo dhammaystiran micnaha dark cream maalintii aad marsanaysaa oo ku joogi kartaa make upka ka dul marsan kartaa iyo maskihiina uu leeyahay marka waxa sameynaysaa dark creamkii maalintii dhan aad ku joogi kartaa make upka markaad marsanaysaa xataa maaragtay wuxuu ku siinayaa meeshaan primerka ka marsano soo asagaa ka dul marsanaysaa kadibna make upkii marsanaysaa kan oo kale waxa isticmaali kartaa weekii 2 jeer isticmaali kartaa laakiin ani ahaan weekii 1 jeer isticmaalaa maskaha waa maskiga caadiga ahaa kana waa creamkii oo night creamka ahaa sirubkii haddana uu ku waraabinayo sirubka maaragtay waa sirubkan ay idinka sheekeeyo kanoo kale yani bisaraaxa inta sirub raadinayo tag meel walba tag yani sirubka mid lamid ama arkin يعني waxaan lahaan jiray wajiga markuu finanka ka baabo tush iyo waxyaalo yar yar wajiga ku lahaan jiray sirubkan aad buu kaaga nadiifinayaa wajiga waxaas oo dhan maaragtay uu ka qaadayaa finanka markuu ka baabo madmadow kugu reebay xataa madmadowgaas uu ka baabinayaa sirubka wajiga wuxuu siinayaa nafaqo iyo dhalaal ayuu siinayaa waliba aniga sirubka aad u jeclaa sirubka markaa marsado muddo aan ku joogo soo daa creamka isticmaalo habeenkii night creamka isticmaalo ما شاء الله وجهي واحد بدناس كاي قرتay iyo sidoo ahaan jiray isma laha soo Herbalife productkiisa waxaan idin leeyahay keerkiisa ku dadaala micnaha maaskiisa kareemadiisa madaxii wax walba uu leeyahay markii insha Allah waxaan miirajinayaa inaan maaragtay igala qayb qaadataan tijaabisaan skin care ka maaragteen ما شاء الله ما شاء الله وحالا ما انت وبحنا دمانتنا وجهي انا حتى مرصدا انا وقت مرصدا وحوين wuxuu ku fiican yahay kareemada wiilal iyo gabdho iyo madow iyo cadaan uma kala socon qof quruxda quruxda loo اساس ابلا wiilashi gabdhaan waa isku mid waa ma fahan qof kasta uu jecel yahay laakiin inuu maarto wajigiisa isbedelo caafimaad loo qoro anu kullu banta dukaan tago ayaan soo iibsanaa somaha kareem waji kareem waji dukaan kan soo iibsan lahaa somaha shampoo iyo wax walba laakiin waxa ka wanaagsan lacag ba kulliga baxaysa de quality iyo safety ugu wanaagsan lacag yar oo qiimo jaban misana wax fiican ku heshid misana maaragtay jirkaaga qurxinayo uu ku maaragtay ku dhisay waxa kale idin ilooy oo dheer maaragtay waxa la yaabaa Herbalife for example kale Herbalife xilliga soo bixis aan horta maana dhaleen weeraan Herbalife waxa soo baxay 980kii waa garan kartid waa waqti badan laga joogo qeeri waa ma fahanti waa yaraan 40 sano kana bixinaysa marka xilligaas maana nooleen laakiin wadan walba Europe ku taalo kale هذا فرصة أنا ودك عندك النورو كله أنت ود النورو عندك ولي ما مغلين حرم اللي كنت على هربلاف مليرة ولي معنا مغلين لكن ما كان برودكتي أم بلا كل أنا جوجلي وحاب يصبح إلى حرم تاني هربلاف كنت على كان دو لواتن أفرس إنه حرم كلها ينبع كسحن لا أفرس ودك كنت أنا أحتاج إن يربى واجد وحرك وادي الله وصلنا جد ما لازمه Herbalife أنا سيدي مثلا تبرق أي واحد أنا يدوش شيء يعني توقفكم سيدي كده قفك استوى عليه إنه دالي صحوجا لكن واحد شرد ضفر بدره ممكن يعني جابوا يعني اسمه كده وجهه ضو في الصقف كان واحد صار كان عمري يسوي له مسح هذا ما يربح كان واحد سنة ديده وصار حومه هذا ما كان قفكاس كمرة قفكاس السمرة لكن ما أنت هذا هجاج السو سكين كهجاج كانوا كله زورم كانوا كله وأنتي إيش
ها أنت إيش نقولي يعني وجهك دوبك كله ما أعرف هذا سيب له هذا الشان لا تنسى نتشرا صدق سنة فرت سنة ممكن قعدت مرة بالشان يطلعون بوكاسي دي معي مرة هذا شيء كويس يستوي ولا بدي أن هبلا يرد عادي حاجة بلا 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 كده بلا هاي وباي وحاس وفهمت بلا وجعلنا لا ما ده ما نعمنا بين ما قبلنا ده نعمنا نما كسبوا كل النعبية ده عند شكل ما شفته لكن هدي على السكرون هذا واحد وناكسن أو ما عرفت نفقة له أو واحد شركة أوران هدي لعنه واحد وناكسن الله مرصده وقول عشرة مركز وسيج رسام دو إلى عمر كانوا بيري أنا إن شاء الله مركز قفل ما واحد يشيء هار راح مركز استمع وحاله كسات الدبات تنجسي دي تنجي ما كتصاوف في عرفت هذا عشان كذا دارتين ورغم ما كنت تشير أفرت تنجير أنا قلني كان أبغى تمرخاتي وهاي وير يا رادي هذا لو أنا سوي جدا ولا بعد يعني أنا وير عمري ما نقول مثلا ما يرتاح استحلات ترفلات هل سنوشي حلو كقرأ يدو كقرأ يدو مركا ورقد يقبضوا مركا إن شاء الله كري هدينا نفتي نودا يوتيوب channels كا يا يوتيوب يلا كدا ونسان برضو يلا إن شاء الله وأنا نص عندهم تان وحنا سويت وحنا سميننا هذا الكلام كذا وحنا سميننا 2020 challenge قف ولبا dadka imkaan yani program ka bilaana waa dhowr boqol oo qof insha Allah waxa siinaa mid gaadho yani imka ugu yaraan Soomaali ahaan oo kale masha community Soomaalidu ka wada faa'iideysteen laakiin waxaan sameeynaa waxa 2020 challenge waa samarka 6 bilood imka winter lagu jiro jaakada weyn xidhan yahay waxa qarso يا لقى دريم لكن ما تصور كل ما هذا قف كلا صباح هذا قرب بدنا وساعة نار تقبلها وحرقونا إن شاء الله يس تاسنا إن شاء الله كلي أنتوا ده بدري لايف ستور كده بدري قروح ده شيء قريه ده شيء بيرفكت وقف المرة إن شاء الله لكن that's our goal واحدة في إن شاء الله لكن وق نورنا هم يهيكس اللي هنا بالمقاعد واسع إن شاء الله ما أنت هذا أم سنتين وكذا ما أرتي داوشين الوقت خالي شرط بدنا النص أنا دعوتين هذا ما أعرف سؤاله هذاك عشان لايكتا كومنتيدا سؤاله واحد قبل إن شاء الله ما أعرف كل كومنتي إنه صقر إن شاء الله كل ما أعرف كل أما سناب كنا فيسبوك كنا إنستغرام كنا كل إن شاء الله وصقر دونا ما أعرف كيسي هذا صقرين هاي هكذا لما كومنتي إنه ضعفة قال لو ده ويلا صحريرة ما يا صاحبتي يقول حرن صوته أو واحد بدنا يحكي عن برودكت يعني واحد بدنا أي فايدين دونا يقاف أو استعمال لنا وحاصل الله صحريرة إن شاء الله جالس مرقادة بس مساك اللي مسك سوق أنت كيلو تصور من السوق أنا أقول سوق كومنتي أقول سوق 20 كيلو 60 كيلو 15 كيلو هذا السوق رون كده لأنه وحويان أنا واحد نقول قارسين هدف كذا guys السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.